waxaa maalnimadii shalay deeq raashiin la gaarsiiyay dadka ka soo barakacay tuulooyinkii dhowaan dagaalada uu ka socday ee la gubay. waxaa deeqdaasi soo dhiibay dad walaalo muslimiin ah waxayna soo wakiishteen xildhibaan Cumar Gaabo waxayna deeqdaasi gaarsiiyeen dadka meeshaasi ku soo barakacay. waxaa ugu horeen ka hadlay dadka deeqda la gaarsiiyay waxayna hadaladooda ay ku bilaabeen Sheekh Cusmaan oo ka timid tuulada Jameeca Mirsaweyn oo dhib badan ka dhacay oo baahi badan iyo rafaad badan daruuf badan ee meesha ka jirto. waan ku mahad celinaynaa walaalkayna oo Soomaaliyeed annaga oo na soo gaarsiiyay inkastoo intaasna bixinin oo waxna loo tarin oo dadweynaha inta yimid iyo inta qaday inta oo hadda timid oo noqonayso oo culays badan ay tabanayso oo ah dadkii soo barakaceen oo la gubay oo ka tirsan oo u baahan gacan qabasho xoog badan oo u baahannahay walaalaheena oo na soo caawiyeen asxanta jisaa kala waa idinka qabnaa kana socda mas'uul ka tirsan tuulada Maqdis waa ku mahadsan yihiin walaalaheen noo soo danqaday aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin iyo walaalaheen ay soo wakiisheen sida nadiifka ah ay noo soo gaarsiiyeen wixii loogu soo dhiibay waa ku mahadsan yihiin oo ka wakiilan tuulada Jameeca Misra oo maanta ku dhacday dhawaato xoog leh macnaha waa ku mahadsan yihiin jaaliyada Australia walaalaheena joogo oo noo soo wakiishteen Xuseen Biimaalo si oo nadiif ay noo soo gaarsiiyeen 40 qof oo soo talagaleen $540 waa ku mahadsan yihiin waxaan ka rajaynaynaa saa iska fiican inay walaalahood oo raxmad leh ku soo dayaan ilaahana xariis iskale ilaahana wax iskale ilaahana wax ka sugayna walaalahayna waa ku mahadsan yihiin waxaan soo gaarsiiyeen waan soo gaareen Xuseen Biimaalo waxay noo soo dhiibay waan soo gaarsiiyay $540 si nadiif ah inuu soo gaareen waxaa u baahnaa laakiin il gaar leh inaan soo arkaan waxaa u baahnaa tendiyaal si Syria xil roobada loo jiray laakiin waxayna soo gaarsiiyeen si nadiif ah inuu soo gaareen masiibo haddii dhacdo waxaa la yiraahdaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saddex tuulo oo la gubay wax hadda inta la soo koobi karo ma cadadkooda haddana mar tuulooyinkooda intuu noqdaan haddana wax ka doontaan hatta aysan tagi karin amni dartiis sida xildhibaanku uu sheegayo waa dhibaato ama masiibo soo korortay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala masiibada qaadi karo ilaahay hadnaga dulqaado masiibada jirta waxaan aad ugu xumahay in yani la yiraahdo 20 maalmood oo saddex tuulo guban in qof dawladda Hirshabeelle iyo maamulka dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe in wali yani ii sheeg ay soo gaarin tuulooyinkan ay soo arkin dadkii ku fardhisnaa tuulooyinkan kala duwan ay soo ogaanin aad ay ugu xunnahay waa yani ii sheeg nasiib daro waaye waxaan leenahay maamulka meel kasta uu joogo hadii ay tahay dawladda dhexe oo farmaajo ugu weyn yahay hadii ay tahay Hirshabeelle wali ka gaaris ayaan leenahay oo ka gaari karnaa dadkan dhibaataysan goobaha ay ku nool yihiin in lagu soo booqdo wixii gargaar oo loo fulin karan loo fuliyo dhammaan waxaan ka codsanaynaa Hirshabeelle iyo dawladda dhexe in dadkan meesha ay ku sugan yihiin la soo ogaado in saddex tuulo oo kamid ah tuulooyinka dega ee webiga Shabeelle ee ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ay kamid yihiin Jameecada Misra Maqdash iyo Kulmis qasaaraha lama soo koobi karo wixii dhibaato ku gaaray lama soo koobi karo balse waxa weeye aayadan ninkii fahma ayaa wax walba ay qoseeyo adduunka ka dhaco ay saameyn ku yeelanaysaa ama inta aad joogo oo wadanka kula joogo ama dibadda aad joogo walaalaha soo gartay ee u danqaday dadka masaakiinta ah ama mataqaana ay waxyeelada ay gaartay ee soo barakacay oo hadda tijaabadan u soo dhiibay 40 ruux oo maskiin ah oo ducafo ah dadkan fadhiyo waxay u qaadeen 40 ruux oo miskiin ah oo ducafo ah qaarkooda ay jirin yihiin oo gacanta lagu haayo ayaa loo qaadaya midda kale waxa la yiri kullukum raaci wa kullukum mas'uul an ra'iyatihi ninka mas'uulka oo mas'uulka oo ummadan qaaday adii ilaah baa mataana xisaabtan idin dhaxaysa ama ku day ama wax ka qabo rabbi subxaanahu wa ta'aala idinka dhexdiinan ka baxnay waxaa kaloo meesha ka hadlay xildhibaan Cumar Maxamed Gaabo wuxuuna sheegay in dadka intaan aysan ahayn ay waxba u tareenin inta la gaarsiiyay wuxuuna walaalaha muslimiinta ka codsaday deeqda ay soo gaarsiiyaan in ay laba laabaan oo ay ku sugan yihiin dadkii la soo barakiciyay ee guryaha laga soo gubay ayagoo tiro badan balse maanta waxaan nasiib u yeelanay inaan ilaa iyo 40 qofood aan wax siino deeqdaas oo ahayn mid ka timid hay'ad on ahayn mid si kale lagu keenay deeqdaas waxay ka timid dad Soomaali ah oo degan Austria gaar ahaan magaalada Salzburg
deeqdaas waxaa soo wakiil aan noogu soo dhiibay ninka lagu magacaabo Xuseen Biimaalow deeqdaas markeeda hore cadadeedu waxay $540 $540 waxaan sameynay inaan qoys kastaba 40 qoys aan u qaybinay qoyskii hadda waxaan siinay 5 kilo bariis 5 kilo bur 2 kilo bar sokor 3 litir saliid iyo baakeero maraq digaag intaasay u gaartay 40 qoys aan geersiinay lacagta la soo dirnay waxay $540 wax saas u sii badan ma ahayn marka waxaan leeyahay intii wax soo dhiibatay walaalaha Soomaaliya ee degan Austria gaar ahaan magaalada Salisbury iyo walaalkeena oo wakiilka ka ahaa Xuseen Biimaalow kista aad soo dhiibteen dadka loogu talagalay waan geersiinay kulay waxa meesha la geeyay iyo dadka meesha joogana isuma dhawo boqolkiiba 2 ma dhamo dadka meesha jooga kumanaan waa dadka wax la siin waa 40 ruux marka culayska jira waad arki doontiin oo hadda inta meesha fadhisay inta tuulada degan ama 3 tuulo dadkeed iyo 40 ruux dad la isu barbar dhigi kara ma aha marka anigoo xildhibaan Cumar Gaawo ninka aad soo wakiilateen waxaan idin leeyahay baahida meesheedii taagan tahay oo arintu waxay taagan tahay faanool faraka ma qodno marka dadkii waxa loo baahan yahay in dadkaas lagu soo daydo ugu dambeyntii wuxuu baaq u diray dawladda Soomaaliya wuxuuna u sheegay maamulka Hirshabeelle in uusan ilaa iyo hadeer waxba uusan ka qabanin dadka tuulooyinkeedii la gubay oo la soo barakiciyay wuxuuna sheegay in ay yihiin dadkaasi dad la soo barakiciyay oo ilaa iyo haatan hooy aan haysan iyo wax ay cunaan wuxuu dawladda federaalka ka codsaday in ay soo farageliyaan arinkaasi wuxuu kaloo sheegay in ay dawladda Hirshabeelle ay noqotay mid hotel jiif ah oo Muqdisho iska degan waa sida hadalka u dhig waxaan hadda taaganahay tuulada Jiilaale oo ay ku soo barakaceen dad fara badan oo laga soo qaxiyay guryahoodii oo guryihii laga soo gubay waxaan leeyahay fariin ayaan halkan wax ugu dirayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan leeyahay maadaama aad tihiin federaalki ay goboladana ka jiraan maamul goboleedyo Hirshabeelle maamulka la yiraahdo wuxuu noqday maamul hotel jiif ah aniga idin la hadlaayo waxaan ka mid ahay baarlamaanka Hirshabeelle waxaan halkan ka cadeynayaa in madaxda Hirshabeelle ay noqdeen madax hotel jiif ah nin hotel seexday oo biyo caafi cawaay oo aan dadkii mas'uulka ka ah aan wax ka ogeyn anaga mana matali karaan waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo fariinta aday si toos kugu socotaa aniga waxaan ahay nin xildhibaan ah shiidla ah dadka la guubay ee guryaha laga barakiciyay waa dad shiidla ah waa dadkina soo doortay fariintan waxaan rabaa sida uu dhaqsiyaha badan inaad ugu soo jawaabtid sababtoo ah gudoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii wixii oo dhan xamar ay jiraan 3 tuulo la gubi inta tuulo u dhaw ku barakacdina ma dhawo marka waxaan leeyahay haday dadkaas ay ahaa lahaayeen xamar inay jiifaan ma leeynay inay jiifi lahaayeen marka dadkaasi dad Soomaalida u maqan ma aha Hirshabeelle wax maamul oo ka jira inaysan jirinna wax shaki oo ku jira ma laha dadkan waxay guuyiin muddo ku dhaw 20 maalmood cid ka hadashay male madaxweynaha anaga xamar ugu tagnay ilaa iyo haddana wuxuu ka hadlay malaha ra'iisul baarlamaanka xamar uu iska dhax fadhiyay marka waxaan leeyahay Hirshabeelle cid uma qamale Hirshabeelle ha loo danee waa markii ugu horeysay oo deeq raashin la gaarsiiyo dadka ka soo barakacay tuulooyinkii la gubay waxaana deeqdaasi soo gaarsiiyay dad walaalaha oo ku nool adduunka dacaladeeda waxayna soo wakiisteen xildhibaan Cumar Maxamed Gaawo wuxuuna eedeen xoogan u jeediyay maamulka Hirshabeelle Maxamed